wasaaradda diinta iyo awqaafta gobolka Saaxil ayaa sheegtay in la qabtay nin ganacsada u dhashay dalka Mareykanka kaasoo faafinaya diinta Kiristaanka sida warkaasi inoogu soo diray wariyaheena Faysal Yuusuf Kacaan. isku duwaha gobolka Saaxil wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland ayaa waxa uu ka hadlay golaha baarlamaanka Somaliland hadal ka soo yeeray kaasoo ku sheegeen in magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil uu joogo wariye ka tirsan warbaahinta dalka Mareykanka kaasoo qaybinta Biibelka ama Kiristaanka. isku duwaha gobolka Saaxil ayaa waxa uu ku sheegay ninkaasi ay gacanta ku dhigeen inuu ahaa nin ganacsada oo ka soo jeeda dalka Mareykanka kaasi oo qaybinaya kitaabka Biibelka ama Kiristaanka. taasina ciidamada ammaanka gobolka Saaxil ay gacanta ku hayaan. waxa uu yiri halka horteeda waxa yaala waa buug waxa dushiisa ku yaala kitaabka quduuska ah waa Biibelkii oo af Soomaali lagu turjumay. in kitaabka waxa qaybiyay nin u dhashay sida la sheegay ee wasaaradda arrimaha gudaha ay cadeysay in maamulka gobolka Saaxil waliba in Mareykana waxaan wadanka ku soo galay ganacsade hawsha muddo sanad uu ninkaasi joogay magaalada Berbera sanad ku dhow aniga iyo xogayaha gobolka Saaxil ee maamulka gobolka ayaa muddo dabagal ku haynay waxaan naga qayb galay khayr Allah siiyo qaar ka mid ah ciidanka qaranka Somaliland oo hawsha nala fududeeyay waxaan ku guuleysanay inaanu inkastoo la sheegay inuu buugaag badan qaybiyay say dadka qaar noo sheegan wali laakiin aan xogti rasmiyeed ku daba jiro inuu buugaag badan qaybiyay kaasaan ku guuleysanay markaa inaanu qabano markaa waxa dhacday muddo imika bilka hore hadii aan khaldanayn golaha guurta Somaliland in xogaal noqoshada dalka markii ay ku marayeen gobolada dalka gobolka Saaxil qaybtii timi ayaa maalintii kitaabka buuga ay nagu wareejisay maamulka gobolka nagu wareejeen maadaama aanu nahay wasaaradii u qaabilsanayd wadanka wanaag farista iyo xumaan reebista ayay deedna ilaahdeen waxaan doonaa warbixin naga sanbuuga golaha guurtidu warbixinta maalinta waanu siinay waxaan uga waranay buuga iyo sifaha oo wax weyn nagu soo galay isaanu ku helay marka halka wax ka khaldan wax weeye wariyaasha gobolka Saaxil taabatay marka xaqada laga hadlo ilaa xal ilaa shil la soo weydiinay ninku suxufi baha ninku ma ahay suxufi Somalilanderna ma ahay Soomaalina ma ahay nin muslim waxa ninki buuga Kiristaanka afidinaya waha waana Biibelka oo Soomaali ku turjuman dhalashadiisuna Mareykan bay la sheegay sida ay sheegeen maamulka gobolka ninkaas inuu wadanka ka baxay wadanka laga saaray kadib baan anagu waxa weeyaan hawsha markaan buuga helay intii kalena waan ku daba jiraa kulay rag baan la shaqeynayay khayr Allah siiyo waxa weeyaan waan ku arkay qudhaydu wax baraha bulshada oo waan ka arkay Facebooka fariimo badan oo la iga soo diray oo la leeyahay wasaaradda diinta iyo awqaafta warka sheegay ninkaas ma ahayn suxufi waxa weeyaan in cadeyntiisa waxaan ku cadeynanaa waxa hadda ka hor u yeeray muddo imika laga joogo dhowr bilood maamulka gobolka u yeeray waraysi bay la yeesheen abku wuxuu yiri waxaan ay ganacsade milix iyo waxban ka shaqeynay laakiin wali hawshu ma bilaabin ninkaasina ma ahayn suxufi waxa la weydiin karaa de wasaaradda ruqsadda oo wadanka soo galay siisay wasaaradda maamulka gobolka joogo marka ninkaasi ma ahayn suxufi Somaliland iyo caalamkuna waxa uu sheeganaa warka baxay ninkaas suxufi ma ahayn Somalilanderna ma ahayn hawsha marka aanay ku dhameystirmin aad ku daba jirto qayb ka mid ka maqan tahay marka aad baahiso ee aad soo bandhigto cid kasta oo marka hawsha ay kaaga jirtay wax weey daboolka laga saaray tanna maalintii ay qolada gobolku nagu wareejinayeen ee qolada guurtu ogaatay sidaas ay deedna aan warbixinta ku siinay wasiirkayga waan ogeysay wasiirku wuxuu yiri la shukr cala waajib waa shaqadaadii aad u igmanayd waanad ku mahadsan tahay marka sidaas ayaanu ku haynay wax weey buuga tagala guurtu waxay nagu codsanayeen siino marka waxaanu doo haysanay inaan isku difaacno hadhow markaan laga weydiiyo cadeynta marka saasaan ugu diidnaan ku hayn Faysal Yuusuf Kacaan wararka warbaahinta Royal magaalada Hargeysa.